kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta aynu jecelnahay meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo inoo daawanaysaan kusoo dhawaada janaalka Edlab Sports Channel. maantana waxaanu ku eegi doonaa kulamadii xalay laga ciyaaray tartanka UEFA Champions League iyo kuwa caawa la ciyaari doono. haddii aanu ku bilaawno kulankii xiisaha badnaa ee ka dhacay garoonka Old Trafford, kooxda Manchester United ayaa 10 kubadda cagta ah loo dhigay kadib markii kooxda Paris Saint-Germain ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay. ciyaarta ayaana ahayd mid qaybtii hore ciyaarta isku dheelitiran, hase haatee markii ay dhaawac kaga baxeen ciyaarta xidigaha Anthony Martial iyo Jesse Lingard, bedelna ay ku soo galeen xidigaha Juan Mata iyo Alexis Sanchez, ay noqotay in ay wax weyn iska bedelaan, waxaana ciyaarta la wareegtay kooxda Paris Saint-Germain oo 2 gool oo Dorandoria oo ka kala heshay qayb dambe ciyaarta xidigaheeda Mbappe iyo Kylian Mbappe ay noqotay in 2 gool iyo waxba lugta hore ee wareega 16 ay sidaas ugu hogaamiso. kubadda koowaadna waxaa koorna ay ahayd ama geeskalaad soo qaaday xidigii hore ee kooxda Manchester United ku fashilmay ee Angel Di Maria, lugta si qurux badan ugu dhuftay xidiga qayb dambe ee daafaca dhexe kaga ciyaara kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka dalkaasi Faransa Mbappe, markii xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Nemanja Matic uu lumiyay xidigii uu raacanayay oo ahaa Mbappe, kadibna si xora oo aydoon cidna u dhaweyn uu lugta si qurux badan kubaddaas ula helay, waxaana uu doomarsiiyay goolhay David De Gea oo cid caawisa aysan jirin. sidoo kale markii Manchester United ay isku dayday inay goolkaasi iska soo guddo oo ay weeraro qaado, ayaa kontraata qurux badan waxa ku sameysay kooxda Paris Saint-Germain. kubadda ayaana loo tuuray qaybta bidix ee weerarka xidiga Angel Di Maria oo mar kale kubadda la ortay cross qurux badan soo dhigayna waxaa lugta si halisa ugu dhuftay xidiga weerarka kaga ciyaara ee da'da yar ee mucjisada ah ee Kylian Mbappe, waxaana ka dhigay ciyaarta 2 gool iyo waxba, isagoona sidii cabdi bilihii oo kale kasoo dhaxbaxa xidigaha daafaca dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Lindelof iyo xidiga Eric Bailly, waxaana isagoo xawaaro ku socda uu lugta si xoogan ugu dhuftay kubadda, waxaana David De Gea isagoon arkinba kubadda shabaqa dhex dhigay. sidaas ayayna noqotay in 2 gool iyo waxba ay guusha ku raacdo. waxaase intaas uga sii darneyd kooxda Manchester United waxa kaarka casaanka dhamaadka ciyaarta ka qaatay Paul Pogba, markii 2 jaallo uu xidigaasi ciyaarta ka qaatay, wuuna ka maqnaan doonaa ciyaarta dambe ee 3 bisha Maarso ka dhici doonta garoonka Parc des Princes ee dalkaasi Faransiiska. ciyaartan ayaana u muuqata in sidan ay kooxda Paris Saint-Germain ay ugu gudubtay si fudud wareega 8-damaadka ee tartanka Champions League, maadaama kooxda Manchester United ay xalay ciyaaraha ay soo bandhigtay aysan ahayn mid loo barbar dhigi karo ciyaaraha Paris Saint-Germain ay ciyaarayso. ku sii darso Paris waxaa ka maqnaa xidigaheeda muhiimka ah ee Neymar iyo weliba goolaliyaheeda Edinson Cavani. tan kale kooxda Giallorossi Roma ayaa ciyaar ay ku qaabishay garoonkeeda Olympic Stadium waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda FC Porto ee ka dhisan dalkaasi Portugiiska, waxaana 2 gool kaga mahadcelinaysaa kooxda Roma xidigeeda Zaniolo. sidoo kale kulamo ka tirsan tartanka UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaari doona, waxaana is arki doonaa kooxda Ajax Amsterdam oo soo dhaweey doonta kooxda Real Madrid, halka kooxda Tottenham Hotspurna ay garoonka Wembley Stadium kula ciyaari doonto kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund.